Assalaamu calaykum dhammaan macaamiisha ku xiran page-ka Muradso. Waxaan halkan si toos ah uga soo tabin doonaa barnaamijkeennii Muradso Technical Support inagoo kaga hadli doona basic computer-kii. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah computerku muxuu yahay balse muxuu inoo qabtaa. Computerku waa aalad ay noo fududeynaysa shaqooyin badan inaan ku qabsano sida shaqada ugu yar oo ah calculation, shaqooyinka ugu badan oo ka mid yihiin barnaamijyada wax soo saarka sida graphic design-kii, video editing-kii, audiation-kii, AutoCAD-kii ama AutoCAD-kii iyo barnaamijyo kale oo aad u fara badan. waxyaabaha haddaba inoo saamaxaya computerkeena inuu noo qabto dhammaan howlahaas waxaa ka mid ah hard disk-gii, RAM-kii iyo processor-kii. hard disk-gu waa xogeydiyaha computerka isagoo ku kaydinaya barnaamijyada iyo dhammaan daatooyinkaaga kugu jira computerka. haddaba hard disk-gu waxyaabo u kala qaybsamo ayaan sheegi doonaa iyagoo kala ah hard disk drive iyo solid state drive. marka haddii labadooda aan isbarbar dhigno, solid state drive-ku ama SSD drive-ku waxa uu aad uga xawaaro sareeyaa hard disk drive-kii. haddaba haddii aynu eegno dhinaca RAM-ku waxa weeye barnaamijka ama shayga kuu saamaxaya inaad kusoo kiciso applicationska kugu jira hard disk-gaaga. sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa xawaaraha ama speed-ka uu computerkaagu ku shaqeynayo. computerku ka RAM weyn yahay ayuu ka xawaaro badan yahay. haddaba haddii aynu eegno dhinaca iyo processorka waxa weeye maskaxda computerka. sidoo kale waxa uu noo fududeynayaa dhammaan shaqooyinka ka socda computerkaaga. waxaana ku saamaxayaa shaqooyin badan inaad hal mar ku wada qaban karaysid ama applicationska culus aad u isticmaali kartid ama waad ku soo kicin karaysid. haddaba si aad ula socoto barnaamijyada dambe, fadlan YouTube channelkeena subscribe saar, sidoo kale like oo na sii share garee dhammaan asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan macluumaadkan.